السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين وناكسن أصحابي ميلكستو أجوكتان كسو دواذا برنامج كينا هبين نمو وهبين رها الشينها يكوى مريكنكا أيال شيغي إني إسا إركين وحال شيغي إن كوي مريكنكا لوغا أتكاذي ساحدا هدي سيدا شيكادو كسوعتو دقال سدحادو بلوضو dadka khubarada waxay leeyihiin macalinka weyn waa ku daay waqtigiisu waa dhamaaday kulay hadaba tafaasiil ku saabsan sheekadan halka ay ka dhacday oo diyaaradaha Mareykanka casharka loogu dhigay waan u tagi doonaa Tony Blair oo loo diiday inuu markaa hogaamiyo maamulka kumeel gaarka ee laga dhisayo Gaza tolowyaa ku kacay odaga waan idin hayaa iyo Israa'iil oo sheegtay in ay darbi ka dhisayso xuduudka u dhaxeeya Urdun iyo iyada qodobadaas aynu barnaamijka ku soo qaadanaynaa inta aan ku jirnana wixii soo kordho waa isla soconaynaa waa habeenimo isniina oo talaada ay soo galayso barnaamijku waa kii saddexaad waan hubaynaa si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijyadaydii subaxnimo iyo kii galabnimo caawa barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa muddooyinkan waxaa maqlayseen waxaa jira diyaargarow dagaalkii saddexaad Mareykan iyo Chinese qolooyin ay kala hogaaminayaan ayaa isfara saari doona macalinka weyn tiimkiisu way tabcaaneen Yurub iyo ayaa kamida tabar badan lama hayo Shiinaha iyo Ruushka iyo Jeegaxiirka iyo wixii soo raaca iyaguna waa isku tiimkan carcar culus ay qabaan waxay rabaan imbraadoriyada hogaaminta caalamka inay macalinka weyn kala wareegaan haddaba waxay mar walba soo saarayaan taya ahaan wax ka sareeya hubka uu isagu sameeyo Mareykanka wadamo badan oo xirta macalinka weyn ku jiray oo Japan iyo Kooriyada Koonfureed ay ka mid yihiin hadda waa loo yaabaa kadib markii Shiinuhu la yimid hub la yaab leh haddaba diyaaradaha dagaalka ee Shiinuhu sameeyo ayaa muddooyinkan waxay wadaan wacdaro inay ka dhigaan saaxada caalamka dagaalkii ugu dambeeyay Hindiya iyo Pakistan dhexmaray Pakistan oo adeegsanaysay diyaaradaha Shiinaha waxay nagta ka saartay kuwii reer galbeedka oo Faransiisku uu lahaa way garaaceen dhulkay soo daadiyeen maxaa dhacay xaddi la soo dhaafay shalay diyaarado Mareykanku sameeyay oo Japan ay haysato oo la yiraahdo F-15 ayaa waxaa la isku helay badda korkeeda la isku helay iyaga iyo kuwa Shiinaha sheeko la yaab leh ayaa marka halka ka dhacday nimankii diyaaradihii Japanka ahaa raadaarkoodii la dhex galay kuwii Mareykanka wayba arki waayeen kuwii Shiinaha iyagoo baxsada oo meel laga jiray aan ogeyn ayay hawada ka baxeen sheeko la yaab leh ayaa marka dhacday marka halka waxa ka muuqda lagu leeyahay awood ay leeyihiin cududda ciidamada cirka Shiinaha oo isu soo taraysa diyaaradii Mareykanka midii la qabtaba 10 loo dhigayaa macalinka weyn waa yaaban yahay haddaba marka aad soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray majalada la yiraahdo ad-difaac al-arabi ayaa waxay leedahay diyaarad nooceedu yahay J-16 oo ay leeyihiin ciidamada badda Shiinaha ayaa waxaa la sheegay inay hawada ka saartay diyaaradaha dagaalka F-15 raadaaradooda ee ciidamada cirka Japan ay isticmaalayeen haddaba warbixintu way sii socotay waxay leedahay diyaarad dagaal oo nooceedu yahay J-16 oo ay leedahay ciidamada badda Shiinaha ayaa waxaa la sheegay inay 10 u dhigeen diyaaradaha Mareykanka F-15 oo ay Japan ku wateen haddaba axadii ayaa la sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha ay raadaarkooda ku xireen diyaaradaha militariga Japan laba dhacdo oo khatar ah oo markaa ka dhacay jasiiradda la yiraahdo Okinawa oo markaa halka ay isku heleen diyaaradaha Shiinaha ra'iisul wasaaraha Japan Shinya Takachiki ayaa u sheegay wariyaasha in raadaarka oo la dhibaateeyo uu yahay fal khatara oo ka baxsan waxa lagama maarmaanka u ah in la hubiyo badbaadada duulimaadka isagoo intaa ku daray in Tokyo ay u dirtay Beijing
ay u gudbisay cabashadeeda ka dhanka ah dhacdadaas oo dhacday axaddii waxaana lagu tilmaamay mid aad looga xumaado. dhanka kale wasiirka difaaca Japan Shinzo Kazumi ayaa waxa uu sheegay intii uu socday kulan uu la qaadanayay dhigiisa wadanka Australia Richard Marles oo ka dhacay kulankaasu magaalada Tokyo ee caasimadda Japan ayaa lagu sheegay in Japan ay si adag oo degan uga jawaabi doonto ficilada Shiinaha si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida gobolka. laakiin afhayeenka ciidanka badda Shiinaha Colonel Wang Xiong ayaa sheegay in diyaaradda Japan ay si isdaba joog ah ugu soo dhawaaneysay oo ay carqaladeynaysay ciidamada badda ee Shiinaha iyagoo sameynayay tababaro, waxaana uu sheegay in loo diray diyaaradahan kadibna shaqo laga qabtay. marka maalmahan xiisada jirtay China iyo Japan ayaa ka dhex taagnay, laakiin nimankan Shiineeska ah diyaaradda waxay leeyihiin Jabaneeska labada diyaaradood Mareykanka ay u haystaan inay khatar tahay labaan u dirinay yiraahdeen bis raadaarka dhana laga wareeriyay meelay joogaan iyo meel kale garan waayeen waa wareereen cabaadkoodii baxay cabashaan u gudbina Shiinaha arinta khatara ka dhalan kartaa. Shiinuhu marka waxay yiraahdeen marka iyaga annagoo shaqo wadanay meelaha soo marmareen maxaa keenay dheen meelaha kibirka fiir. Shiinuhu marka caadi ma ah. waxyaabaha kale ee la yaabka leh isla arrimahan ku saabsan Shiinaha la yaabka uu soo bandhigayo waxa ka mid ah waxa la leeyahay iyadoo maalmihii la soo dhaafay aad loo hadalay sheeko ku saabsan Masar inay tageen diyaarado dagaal oo Shiinuhu leeyahay iyadoo aysan arkin raadaarada Israa'iil iyo Mareykanka. waa la iska agmaray waa la tagay waa hadda koor 2 bil koor meed bil koor halkaan ka sheegin. hadda mar kale ayaa Shiinuhu tabtiyo kale sameeyay lagu leeyahay oo waxay diyaarada u direen halkaasay diyaarada u direen. haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray diyaaradda la yiraahdo J-10C oo Shiinuhu leeyahay ayaa la sheegay raadaarada Israa'iil iyo Mareykanka inay arki waayeen iyadoo ku sii jeeday waqtigaas Masar. Qaahira ayaa waxay xoojinaysaa awoodeeda dhinaca militariga ah ee mustaqbalka. ma u jeedaa waa 7 December ayaa la qorayaa waa shalay gelinkii dambe ayaa majaladu qoraysaa waxay leedahay diyaarad Shiinuhu leeyahay tagtay Masar. raadaarkii diyaaradihii iyo wixii Mareykanka ee meesha dhoobnaana maba arkin waxay ka war heleen ayadoo Qaahira ka degtay. marka Shiinuhu wuxuu soo wado iyo badda iyo webiga yaa weyn waay xaalku markuu ma sahlana macallinka weyn waa loo yaabaa. dadka khubarada waxay leeyihiin hadda xilligan la joogo haddii dagaal saddexaad bilowdo macallinka weyn iyo xirtiisa waa loo yaabaa badda la gelinayo imbraadoriyadiisa iyo ku takrifalkiisa adduunyada waa meelaha la saarayo marka xaalkaasu halkaas ayuu marayaa. qodobka halkaas ayaa kaga gudbaynaa. qodobka kale barnaamijkaan idinayo ninkii Tony Blair ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Britain oo muddooyinkan doonayay inuu maamulo Gaza Trumpna uu sidaa la doonayay ayaa hadda waxaa leeyahay waa loo diiday sheekadaas. dowlado badan oo islaam iyo kuwa carab ah ayaa markan karti iska baaray waxay dhaheen ninkan carabta waa necab yahay yahuudana waa jecel yahay marka ma loo dhiibi karo Gaza. furkay tuurteen sababtu maxay tahay dagaalkii 2003 Ciraaq lagu qaaday ayuu Mareykanka ku taageeray marka ninkan nin oo hal dhinac u shidan waayeen ninkan maba loo dhiibi karo buuq fara badan ka dhacay hadda arikii wuu garowsadaa la yiri ninkii marka waa laga saaray. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Sky wuxuu leeyahay Sky News waxaa laga joojiyay Blair inuu xubin ka ahaado golaha nabadda ee Gaza.
ولا فوقي وماشي هسكوي معنا للشيخ دولة عربية كو إسلامها يا فرقة طورة وحين هذا نكان وابن يهود انت تاجني سيدان لو قولي بايدين ماشي وابن جعلي نكان من الوسود وين عيد هذا بقولك كاستور هالكاسة كيقود بينا شكذا كانوا حساله لما إسرائيلية وحين هذا الأردن وكعب سنة ماشي إيران أي وحكسوا قلسوا تهريب كدان قلبادي أردن وايد هذا دربي هذا سنة درب حدود كإسرائيل أردن ودحي دربي دير وكرتو كعرتان سنة ماشي هو علي وين المعلم والبوحبا سوق قلاي هو سوق قلاي فلسطينيتي مركا هوبك ولا قد قال الشهاده هوب علوس معنا مركا شيكاداسو هو شيكادا waa loo soo socotaa qadar xayisiisa kadib